السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين waxaan idin rajeynayaa maalin wanaagsan. maanta waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago ilaa 12 waxyaabood ku wanaagsan markii aad tahay waalid caruur korinaysid. 12 kaas wax hadii aad isticmaashid ilmahaagu isticmaashid ilaahay idinkiis waan ku ma aragtay waan soo saari karnaa caruur ma aragtay sidii laga rabay meeshii laga rabay tagaan ama gaaraan. mid koowaad waxa weeye inaan xooga saarno ilaahay ina ilmaha u barino mar walba u duceeno dib kasto iyo rafaad kasto aan ka mareyno si kasta ay noo dhibaan. mid labaad waa inay anaka naga arkaan maxay ahayd sida uu la xiriirno ilaahay iyo sida wax u weydiisano. mid saddexaad inaan ku abuurno jacaylka ilaahay iyo rabitaanka oo ilaahay ilmaha aan nacsiinin. tusaale ahaan hadaa caruur yar ku mid kale waxa weeye inay anaka naga arki karaan xiriirka iyo ma aragtay wanaaga aan la leenahay iyo rabitaanka iyo baryada aan sameeyno. mid kale waxa weeye in aan ma aragtay inaan ku abuurno ayaka xataa jacaylka. tusaale ahaan hadii aan mar walba dhexdeeda waxa sameyn weysid cadaabka galaysa so taas macnaheedu waxa waa naceeba ku abuurtay naceebka soo hormarisay adoo cadaabi waxaas hadda u sheegin ilmaha da'dooda ku xirantaa marka cadaabka u sheegaysid adi inaad dhahdo waa ilaahay hadaa waxaas sameysid waxaas fiican oo ku siinaya hadaa waxaas ilaahay u tukatid oo riyadaada ku rumeynayso run ilaahay kaaga dhigay hada ilaahay salaatu wax u soo kacdid wax dadka kala helina adi lagu siinaya hada dhinac fiican un ka tustid ma hayna cabsi iyo argagax iyo dhinac xun un ilaahay ilmaha ka tusno markay qaan gaaraan ee xogaa soo weynaadaana waa dhihi karnaa oo hadaa waxaas sameysid waxaas cadaabka ku galaysa laakiin ilmo yar oo ma aragtay 10 sano ka yar marka ilmo 10 sano ka yar hada cabsi iyo argagax un u bartid ilaahaygi abuurtay marka waa wax laga fiican yahay ina u sheegtid hal mar una dhahdid wixii qaldan cadaabka galayaan oo ilaahay dhageysan waayo wixii wanaagsanna jannada galay laakiin adiga u isticmaalin awoodaada kaliya ilmaha ku xukuntid wax ku bartay noqonin cabsi iyo argagax iyo cadaab ina u sheegtid laakiin aad dul martid laakiin marka waqtiga ku haboon tahay ee qaan gaaraan xoog u isticmaashay cadaabka iyo meesha la galay iyo waxaas because ilmaha waxa rabtaa ina ilaahay jeclaysiisid ina tusi ilaahay naxariistiisa ilaahay inuu ma aragta qalad daa sameysid oo ku cafinayo hada ka toobad keentid ilaahay qaafur raxiim waaye ilaahayna wax walba weydiisad ku siinaayo ilaahayna adduunka ku keenay asagana markuu rabo ku cishanayo waxaas oo dhan jacaylka ilaahay noo qabasuno waxaas oo dhan jacaylka ilaahay ina aad ugu abuurtid waaye ma hayna naceebku u isticmaashid oo dhahdo oo waxaad sameyn weys cadaabka galaysa waxaad sameyn weys cadaabka galaysa waxa laga fiican dhahdo waxa fiican ina u isticmaashid waxa hadaa sameysid jannada galaysa waxaas sameysid jannada galaysa salaad subax hadaa u soo kacday jannada galaysa hooyada hadaa wax fiican u qabatid jannada galaysa aabaha hadaa wax fiican u qabatid jannada galaysa jidka hadaa qashin ka qaadid jannada galaysa ilmaha dhanaa jannada hore iyo gadaal ka dhigtid soo jannadu inuu ugu shaqeysana laakiin naceebka ina iyo cadaabka iyo argagaxa ku yareysid taas waa mid kale muhiim aad u ah waxa weeye ilmaha inaad isku daydid oo inaad maxayd aad u dhiirigelisid ilmo oo ogtaa xataa oo ma aragtay ama ma aragtay kalsoonidooda hoos tahay oo kale marka kalsoonida hadee ka hooseyso oo kale ilmaha inaad dhahdid adiga niyad u dhistid oo dhahdo oo la khatara tahay waxa qof aad isku kalsoon waxa qof isku filan hadayaan ku arkay adoo kaliya wax sameysanaysid waxaan ku arkay adoo marka ilmaha kalsoonidooda waa ka qayb qaadan kartaa oo wax weyn ayaa ku bedeli ku soo kordhin kartaa adiga waalid ahaan yadiiba hadii mar walba aad dhahdid maxay ahayto waxaas khatara u sameysay si fiican baa u sameysay aad khatara tahay ma sha Allah hadayaan ku arkay adoo waxa sameynaysa ma umaleynayna waxa sameyn kartid you surprise me ma aqaan ani sida waxa loo sameeyo kaali caabi hooyo kaali itus ma sha Allah you very clever qof aqli badan aad tahay ma aragtay ma sha Allah ilaahay ku barakeeyo aad hadiyadna ku siisid adoo og wixii ilmaha inuu ama ku liito ama sameyn karin waxaas because taas waxay u tusaale tahay in ilmaha aad maxaad kor u soo qaadi kartid kalsoonidiisa ama kalsoonideeda oo hadhowna qayb weyn ka qaadan kartid intaas because ilmaha guriga baa laga dhisaa horumarkooda iyo dib u dhacooda marka iskoolka wax weyn kuma soo kordhin marka hadii aan mar walba ilmaha aragtid oo ma aragtay
xumaantooda iyo dhibkooda una dhahdid mar walba dhahdid wariyaa saas maxaa u samaysay wanaayaa maxalkaa u aaday raac maanta dhuna xumaantooda iyo dhibaatadooda un aragtid oo aad qabanin asoo wax fiican sameynaayo haddaa aragtid xataa asoo wax fiican sameynaayo mayada wax fiican sameynayso shib ka dhahdid laakiin adi hurdada waa ka kacdid qayladana mar walba aad badisid markay wax dhacaan wax xun ma fiicno saas because ilmaha badanaa attention ay raadiyaan waxay raadiyaan qof siiyo ma aragtay waqti qof siiyo raadiyaan ama la hadlo ama la ciyaaro ama meel u geeyo ama wax siiyo so marka hadday attention ku heli waayaan sida wanaagsan waxay ku raadinayaan sida xun oo kaleeto inay si xumaan ku raadiyaan marka haddii adiga mar walba aad aragtid ilmahaaga markay xumaanta sameynayaan wuxuu isleeyahay hooyo ama aabba waxay ku aragtaa markay wax xun sameynaysid so marka xumaantaas oo mar walba dhibaatadaas marka ilmaha iyaga kama ahan hooyo ama aabba dhib ama qofkan weyn oo mas'uulka ka ah dhib kama ahan laakiin waxay ka tahay anigu waxaan helo waxaan rabo waxaan helaa marka waxun sameeyo ama markaan dhibaato sameeyo ali arkaa inaan jiro magacayga la soo qaadaa li dhahay heblow jooji waxaas heblaayo waxaas jooji laakiin marka wax fiican sameeyo waxay arkaba ma lahan so marka xumaanta waa inaan badiyo samaantan yareeyo ilmaha waa cilmi maskaxeed psychological ah so saas bay isticmaalayaan so ina adi marka wax fiican sameeyo ku qabato dad alla wax fiican aad sameysay qatar dhag oo xumaanta badan amar walba sheegaysid ka yareysid waa qasab waana muhiim inaad yareysid maxay ahayd waa inaad mar walba joogtaysid xuduud u yeeshid wixii ma aragtay ilmaha wax ku soo kordhinayna ayakana og yihiin oo kale aad waxaas inaad joojisid because adna wax benefit oo faa'iido kuuguma lahan oo khasaare adna faa'iido kuma ahan qofna faa'iido uma ahan khasaaro baa ka heshaa waxaa iska joojiya dhehaysaa marka waxaa kaloo haddana aad muhiim u ah inaad joogtaysid waxa aad caadaysatay wax caado ah oo faa'iido u keenaya ilmahaas ama gurigaaga iyo noloshaada oo ilmaha faa'iido badan u keenaya khasaaraha ku yaraade waa inaad joogtaysid ma ahan wax inaad haddana samaysid hadhowna iska dhaaftid waa inaad waaridnimada ay ku caddahay shaqada waaridnimo ee ku caddahay ay ku toosan tahay og tahay wax cad oo joogto ah ay ku yihiin waa inaad mararka qaar oo badanaa waliba aad waxba sheegin balse tustid tusaale ahaan haddii ma aragto maanta dhan aad qofka la hadlaysid waxaa kaaga fiican inaad tustid sida adiga rabtid oo kaleeto haddaa rabtid inaad si sax u labistaan waa inaad si sax u labisatid haddaa rabtid inaad si sax u tukadaan waa inaad adiga si sax u tukatid haddaa rabtid inaad si degan u hadlaan waa adiga inaad si degan u hadashid oo tustid waxna waa itus waxna waa ii sheeg xiriirka wada hadalka midka kale waxaa weeye xiriirka wada hadalka waa muhiimada nolosha qofka inaa wada hadashaan ilaahu noqdo ilmo yar calooshaada ku jira xataa inaa wada hadashaan waa muhiim waa waxyaabaha furaha ee nolosha sababtoo ah qofkan qof bini aadan oo jiro haddaa la hadlin communication priority inay ku noqoto waxa ugu muhiimsan waa inay ku noqoto wada hadalka xiriirka wada hadalka wixii aad dhibsatay wixii soo kordhay wixii jabay wixii ina maalin adinka qaasidin aad samaysatiin oo dhahdiin maalintaas camal wixii isbuucan soo kordhay iyo wixii khasaare ah ka wada hadashiin laakiin caadi ahaan maalin walbana waa inaad mar walbo maaragtay si degan oo ixtiraam leh oo naxariis leh maxay ahayd oo u wada hadashaan wada hadalka inaad qof waxba ka rajeynin oo waxaas inuu sameeyo qofkaas ama maskaxda ka rajeyn adoo fahansiinin oo dhihin ma fahantay waa fahmay meesha ka wada kasii midka kale waxaa weeye dabacsanaan iyo rabitaan inaad tahay qof dabacsan oo ilmaha u dabacsan oona rabo waxa khayrka u ah iyo waxa faa'iidada u ah taas waa wax la hubo dadkoo dhan wada saas ah laakiin aad rabtid inaad maxay isbedel samayn kartid haddii ma aragtid sida ilmaha ula dhaqmi jirta ee xumeed wax wanaagsan kusoo kordhin kartid haddii aad isticmaashid waxyaabo aan dan kuugu jirin oo ama adig sida laguu soo koriye aad tahay oo ama ka aragtay maxay ahayd saa usoo kortay ama dad kale ka aragtay sida ilmahooda u korinayaan aadna isticmaashid waa inaad tahay qof rabo isbedel wanaagsan inuu gurigooda iyo ilmahooda kusoo kordhin karo u dabacsanna maxay ahayd maslaxadda ilmahooda iyo gurigooda waa inaa ahaatid waa inaa ma aragtay qof oo ma aragtay noqon karo naxariista iyo nolosha ilmahaas mustaqbalkooda aad tusi kartid oo cadeyn kartid
ilmahana marka waa muhiim inaad ka dhaadhicin kartid maxay ahayd waxa ayaga u wanaagsan ama waxay khibrad u leeyihiin ama waxay ku fiican yihiin taasna muhiim waaye inay ka dhaadhacsan tahay marka ogaatid kadib marka u dhug gashid soo baartid aadna fahansiisid marka way badan yihiin intaas dhowrkaas waxyaabadan soo qabtaan isdhahay xoogaa maanta ka gaarsii marka waa mahadsantihiin walaalayaal insha Allah adinku aad iyo aad u mahadsan fadlan like and share ha ka iloobina la sii wadaaga dadka isleedihiin wax way ka faa'iidi karaan fadlan ku qor comments haddii aad wax ra'yi ku soo kordhinaysid wixii lagu daraayo wixii laga reebayo insha Allah waa mahadsan tahay insha Allah waa aragti dambe oo xiiso leh haddii eebaha awoodda leh idmo mahadsanid salaamu calaykum